muddo ka badan waqtiga dastuuriga ee xilhayntiisa ayuu joogaa madaxtooyada Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saacadihii la soo dhaafay ayuunbaa si rasmi ah loo ogaaday rajada madaxweyne Farmaajo ee musharaxnimadiisa iyo damaca kaga jira in dib loogu cusboonaysiiyo sharciyada lagu joogo filla Soomaaliya. Haddaba waa sidee rajada madaxweyne Farmaajo, maxayse yihiin caqabadaha iyo taariikhda doorasho ee diidan kooxda madaxweyne Farmaajo, maxaase laga filan karaa tartanka adag ee afisyooni ka dhici kara? Dhammaan qodobadaasi waxaan ku dul istaagi doonaa warbixintan. Sanado badan oo hubanti la'aan doorasho ah iyo khilaaf joogto noqday kadib 15 bishan magaalada caasimadda ee Muqdisho waxay martigelin doontaa doorashada madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, kaas oo ay ku tartami doonaan in ka badan 20 musharax kuwaas oo u badan rag leh saameyn taban iyo tutogan oo siyaasadeed. hase ahaatee musharaxiintaasi tartami doono waxaa ku soo biiray madaxweynaha sagaalaad ee dalka oo wali talada wadanka haya. xalay ayuu jeediyay khudbad soconaysa 3 daqiiqo iyo dhowr iyo 20 ilbiriqsi, waxaana khudbadaas oo koobneed uu madaxweyne Farmaajo ku sheegay inuu yahay musharax mar kale u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya oo uu hadda si kumeel gaar ah ugu sii fadhiyo. waxaa kale uu sheegay madaxweyne Farmaajo in dad Soomaaliyeed ay ka codsadeen in uu dib isu sharaxo oo talada wadanka uu sii hayo. waxaan dul istaagi doonaa dhammaan tijaabooyinkii doorasho ee ay galeen kooxda madaxweyne Farmaajo iyo rajada dib u doorasho ee madaxweynaha. marka la eego dhammaan tijaabooyinkii doorasho ee ay galeen kooxda madaxweyne Farmaajo ma jirin guul ay ka soo hooyeen doorashooyinkaasi, waase marka laga hadlayo doorashooyinkii guddoonka baarlamaanka Soomaaliya sida golaha shacabka iyo aqalka sare oo dhammaan ay ku soo baxeen siyaasiyiin mucaarad ah ama ka tirsan garabyo kale oo siyaasadeed. 16 kursi ee gobolka Gado oo si weyn ugu mintiday madaxweyne Farmaajo isla mar ahaantaasina codadkooda si gaar ah ugu tashanayay ayaa gabaldhicii shalay garabkiisa ka baxay, waana mid kale oo guuldaro doorasho ah oo uu la kulmayo madaxweyne Farmaajo. taariikhda ama sooyaalka Soomaalida ee doorashadu waxay sheegaysaa inaysan hore u dhicin madaxweyne mar la doortay inuu dib u soo laabto ama mar kale dib loo doorto, waana mid kale oo saddexaad oo aan saacidi doonin kooxda madaxweyne Farmaajo ee ku jira ololaha doorasho ee xooggan. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si weyn ugu tashanaya codad uu ka heli karo xildhibaanada ka soo gala baarlamaanka Soomaaliya, maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gobolada Waqooyi, Hirshabeelle iyo Galmudug. sida la saadaalinayo waxaa natiijada u soo bixi karta garabka madaxweyne Farmaajo loo badinayaa inay la mid noqon karto mid ay heleen guddoonada baarlamaanka Soomaaliya. mucaaradka oo iskaashanaya hase ahaatee dagaal dambe uu ku jiro iyo kooxda madaxweyne Farmaajo ayaa fooda isku gelin doono tartan adag doorashada madaxtinimada Soomaaliya. 15 bishan oo maalmo kooban ay naga xigaan waxaa la filayaa in dalku uu yeesho madaxweyne cusub ama dib loo doorto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana maalintaasi oo axad ah qormi doonto taariikh kale oo ku suntanaan doonto sooyaalka iyo taariikhda Soomaalida ee doorashooyinka. haddaba daawade, adigu yaad gul u rajaynaysaa?